iyo qaabka ay u shaqayso cabdillaahi oo saxaafaddu marka ay fahamsan tahay mas-uuliyaddeeda marka ay fahamsan tahay shaqada ay leedahay shaqada baadhisaaneed shaqada isu dheelitirka wararka iyo xogaha shaqada dabagalka saxaafaddu si guud marka ay shaqadaa ay leedahay ay fahamsan tahay waa door weyn waxay ka qaadataa horumarka bulshooyinka ay runtii ayay ku leedahay xaqiiqooyinkay soo bandhigtaa waxay dabagashaa waxa la yidhaha political elite-ku inta badan waxa weye hoggaanka siyaasiga ah wey markaa saxaafaddu waxay abuurtaa waxa la yidhaha isla xisaabtankaas waxa weeyaan dadka hoggaanka jooga wixii ay qaldeen in tooshka lagu ifin karo bulshada lagu baraarujin karo waxay soo bandhigtaa khaladaadka dadka madaxda ay hoggaanka ah ka dhaca ayay soo bandhigtaa markaa saxaafaddu marka ay fahamkaa ballaadhan haysato ee maxaa la yidhaahdaa in ay isu dhigta inay tahay isha isku xidha maamulka meesha ka jira iyo dadka la maamulaha markay saa isu fahamsan tahay door weyn bay ayay runtii leedahay ta soomaalida walaal haddaanu soo laabto si guud waagii hore waxaa jiri jira waxa la yidhaahdo traditional media ama warbaahintii taqliidiga ahayd ee jaraa'idada kasoo bilaabatay magaziinska lahayd filimada lahayd markii dambe raadiyowga lahayd soomaalidu markaa waxay ahayd si guud adiguna runtii aad baad hoggaal ugu tahay idaacadda waxay ahaan jirtay warbaahinta ugu weyn ay soomaalidu leeyihiin oo dadku dhegeystaan waxyaabo badan baa laga yaabaa inay keenaan waxyaabaha inay idaacaddu caan noqoto soomaalida dhexdeeda lagu sababayo waxaa ka mid ah kow soomaalida akhriska iyo qoraalku uu ku yaraa oo soomaalida akhriskeeda iyo qoraalkeedu farteeda marka la qorayna waaba iska dambaysay ilaa maanta aynu wada hadlaynayna soomaalida si guud akhriska iyo qoraalku uu ku yaryahay dadka wax akhriya iyo dadka wax qora tireexan waa yaryihiin sidoo kalena dadka wax qoraa waxay yidhahdaan soomaalidu intay wax akhriyaan waa oral society ereygaasaa runtii inoo baxay maaragtay dunida dhexdeeda oo bulsho hadasho oo maaragtay oratory leh weeye bay yidhahdaan arrimahaasoo laysu geegeeyey ayaa waxay keeneen inay idaacaddu noqoto tan ugu weyn ee soomaalida public opinionkeeda ama ra'yul caamkeeda jahaysa isbeddel warbaahineed baa dhacayoo waxaa loo bixiyey hadda warbaahinta baraha bulshada ama social media ama citizen journalism ayaa soo baxay berigii hore idaacadaha ama tviyada ama jaraa'idadu waxay lahaayeen waxa la yidhaha editorial policy waxa weeyaan qofka reporterka ama wariyaha ahi inuu war keeno qof tafaftirahay uu ka eego wixii uu keenay ma sugan yihiin anshax ahaan siday yihiin ilwareedyada laga soo xigtay siday yihiin in waxaasoo dhan la fiiriyo oo la control citizen journalismkii wuxuu keenay waxay yidhahdaan waa democratization of news waxay leeyihin waa warka in la dimuqraadiyadeeyo macnaheedu waxa weeye warka in la dimuqraadiyadeeyo waxaa looga jeeda waxa weeyaan warkii uu idaacadda aniguna aan wariyaha adiguna aad tafaftira ahayd hebelle uu dhagaysta ahaa ee processkaas marayay processka in la burburiyo weeye qof kastaa meeshuu joogo ayuu wariye ku yahay qof kastaa meeshuu joogo ayuu la dhagaysta ku yahay qof kastaa meeshuu joogo ayuu dhagaysta ku yahay wax wariye la yidhahda ma jiro wax la dhagaysta la yidhahda ma jiro wax dhagaysta la yidhahdana ma jiro citizen journalismku macnaheedu waxa weeyaan qof waliba hadduu smartphone haysto wuu warrami kara isagaa la dhagaysan karaa telefoon hadduu haysto maqal iyo muuqaal internet coveragena uu leeyahay isagaa la dhagaysan karaa taasi marka maxay meesha ka saartay waxay meesha ka saartay waxa la yaalay inta badan aan idhaaho wixii ethicska saxaafadda la oran jiray shuruucda saxaafadda iyo anshaxii law and ethics waa sharcigii iyo saxaafadda iyo anshaxii saxaafadda labadiiba way burburisay sababta waxa weeyaan dadka hadda warbaahinta soo galay ee citizen journalismku uu keenay waxa weeyaan waa qof aan lahayn xirfaddii loo baahnaa tababarkii loo baahnaa ee saxaafadeeda aan lahayn weeye kuwaasaa markaa maanta dadka u warraba kuwaasaa malaayiin ay ku xidhan yihiin macnaha dadka isticmaalaha damaanta social media ee instagram isticmaalaya ee twitter isticmaalaya ee facebook isticmaalaya maxaa la yidhaahdaa dee waad yaabaysaa macnaha statisticska la sheegaya intay tiro leegtahay kuwaasaa markaa maanta ra'yul caamka bulshooyinka haga soomaaliduna kuwaasay ka mid tahay marka ra'yul caamka soomaalida maanta waxaa haga dad aan lahayn xirfad warbaahineed laba xirfadda warbaahineeda aqoonta haddaanay lahayn dadkii hore idaacadaha ka shaqayn jiray ee adigu maaragtay soo gaadhay laga yaabaa si fiican wada garanaysaa khibrad warbaahineedu muddo dheer bay lahaayeen khibradda warbaahineedu waa aragnimadaasa waxay siisay inay wax kala sooci karaan ay ugu xubsan karaan ay verification samayn karaan ay neutrality-ga ilaalin karaan maaragtay ay waxaas ka shaqayn karaan dadkan yaryar markaa hadda maanta warbaahinta ka shaqaynaya skillkiina ma laha oo tababarkii saxaafadeeda loo baahnaa ee maaragtay educationka may soo qaadan formal educationka may soo qaadan waxbarashadii tooska ahayd waayo aragnimo ku filan oo ay saxaafad muddo ku soo jireenoo ay soo practice gareeyeenna ma laha sidaasay markaa warbaahinta soomaalida maanta kuwaasaa ra'yul caamka hagaaya waxaa citizen journalismka loo bixiyey baanay soomaalidu maanta dhallinyaradeedii iyo warbaahinteeda ay qayb ka tahay waxa la yaala wuxuu caqabad citizen journalismka uu leeyahayna saaxadda soomaaliya maanta waa taalla waaya waad mahadsan tahay marka waxaad leedahay anshaxii ee saxaafadda waxa loogu yeero ama loo bixiyey
lama dhowro oo waa la burburi ereyga waa la burburiyey ma isticmaali kara laakiin runtii dhaawac badan baa loo geystay waxa dhaawac u geysanayana waxa weeyaan hanaankii loo mari jiray in war la sameeyo waxa jira waxa la yidhaha elements of news wixii maxaa la yidhaahdaa way dhaawacmayaan sababta waxa weeyaan adigii baa wariyaa adigii baa kamaramaana adigii baa editora adigii baa warbaahiya adigii baa dhegaystaa wuxuu dhan adigaa isu ah adiguna isma inta badan self censorship qofku inuu sameeyo way adagtay qofkii wuxuu isagu soo gudbiyey inuu qaladkooda iyo saxooda kala arki karo inta badan way adkaataa wuxuu u baahan yahay cid kale oo ka waaya aragnimo badan oo editing ku samaysa wixiisii oo ka hubisa oo wixii qalada ama anshax ahaan qalada ama waaqici ahaan qalada marka qaarkood runa aan la sheeginaa jira do not harm wax la yidhaha xeerka saxaafadda kamid ah uga sii darin weeye af Soomaali xaqiiqa aad og tahay haddaad og tahay xaqiiqada ay dad soo bandhigtay inay wixii wax ka badan keenayso dhibaato ka badan ay soo bandhigayso wax la dhaha uga sii darin marka ha uga darna ka jooji ha uga darna ka jooji waxaasoo dhan hadda cidi ma taqaan marka qodobada ugu waaweyn ee aad oran karto waa lagu tuntay ee anshaxa saxaafadda maxaa kamid ah waxaa kamid ah kow xeerka ugu weyn ee saxaafadda isticmaasho waxa la yidhahdo trust way waa kalsooni in warbaahinta kalsooni lagu qabi karo qofka wariyahay markuu war sheego warkaa uu sheegay waa in qofka muwaadinka ee shacabka ee baadiyaha jooga ee dhagaysanaya warkaa uu sheegay waa inuu ku go'aan qaadan karo haddii maanta aad ii waranto oo warkii aad ii sheegtay aan aamini waayo credibility uu dhaawacmo macnaha mistaaqiyadii aan kugu qabay ay dhaawacanto wax saxaafadaha kugu hadhay ma jiro marka waxaan isleeyahay saxaafadda Soomaaliya maanta waxyaabaha dhaawacmay ee caqabada weyn runtii ah waxa kamid ah in kalsoonidii lagu qabay in war laga qaataa runtii ay aad iyo aad u dhaawacantay in warbaahinta Soomaaliya waliba kuwa citizen journalism-ka iyo kuwa kale taqliidiga waxa ka sii nooliba caqabadaha wixii doonaaba sababa kala ha ahaadaan oo fara badan oo jiri kara laakiin waxa luntay oo natiijadeedu maanta hayna waxa weeyaan in warbaahintii Soomaalidu inta ugu badan la dhaawac weyn kalsoonidii lagu qabay uu soo gaaray wayahay nagay waxaad arkaysaa idaacad dhan oo maaragtay weyn oo dad boqolaal ay ka shaqeeyaan oo caan ah amaba idaacado badan oo ama telefishinada ama raadiyaha oo sheegaya magaalo aan la qabsan in inta lagu duulo la qabsaday dad lagu laayay wax dagaal oo ka dhacana ma jiraan maaragtay cid dib kala hadlaysana ama warkaa maaragtay ku qabsanaysana lama arkayo maxaa u sababay in aan wixii dhacay la isaga daba imaanayn oo maaragtay isheegeen anshaxii ama xeerkii saxaafaddaba sida sheegaysa ee ka baxsan walaal way jirtaa runtii horta Soomaaliya mushkilaadka warbaahinta haysta waxa kamid ah waxa fanka Ingiriisiga loo yiraahdo media ownership waxa weeye cidda warbaahinta leh iyo cidda siyaasadda ku jirta hadday mid kaliya isla noqdaan runtii caqabad weyn baa ka dhalata haddii ninka siyaasiga ah ee political elite-ka ee xisbiga hogaaminaya ama doorashada uu ordaya ama election-ka raadinaya ama isagu kursiga fadhiya uu noqdo ka isagu leh xarunta warbaahineed idaacadda leh TV-ga leh jaraa'idka leh hadduu noqdo ama gacan saar ilaa ama de ganacsatada badhe nin ganacsadayo multi-millionaire haddii uu noqdo haddana ka isagu warbaahintii leh warbaahinta check-in ma samayn karto dawadu soo dejinayo ma hubin karto maxaa la yiraahdaa cuntada dhacday dalka keenaya ma hubin karto maxaa la yiraahdaa caqabada kale amni ama dhaqaale ama siyaasadeed uu dalka ku hayo ma hubin oo wixii isaga iskale siyaasaduna waa la mid ninka political elite-ka hadduu isagu idaacad leeyahay maalintuu isagu kursiga fadhiyana sidoo isagu jecel yahay bay u hadlaysaa dawladdu shaqo wanaagsan bay qabato si wanaagsan baa loo shaqeeyo hanaanku isku aadisan yahay maalintuu isagu kursiga waayana wax waliba haadaan bay ka sii dhacayaan saasay tabanaysaa marka sawirka guud haddaad aragta idaacad propagandadeedu badan tahay maxaa la yiraahdaa safka dagaalka ku jirta haddii aad aragto waxyaabaha safka dagaalka soo galay waxaa kamid ah ninkii isagu iska lahaaba safka dagaalka ku jira waxyaabaha takhasuskaada waxaa kamid ah arrimaha siyaasadda macalina waad ku shaqaysa arrimaha siyaasadda Soomaaliyana ee wada dhundaloosha siyaasiyiinta Soomaalida ama hoggaanka siyaasadda gebigood ma daba dhilfiya mise wax baad ka soo reebi lahayd waa wada daba dhilif kulay anigu horta qof ahaan ma oran karo laakiin hal xaqiiqad jirto runtii ay tahay inaan aad u fahmo nin la oran jiray abwaan haa uu dhintay Allah u naxariistay Guhad Cabdi Gaxiir 1960 markii Soomaalida koonfureed iyo Soomaalida waqooyi ay xorriyadda qaadanayeen waliba ta waqooyi June 16 markii Ingiriiska habeenkii ay ka xoroobaysay ayuu Hargeysa gabay ka tiriyay
markaa dadkoo dhan way jibaysnaayeen dadkoo dhan xorriyad calan saar dee timcadda waa la xusuustaa maaragtay geeraarkiisii caanka ahaaye maxaa la yidhaha aan siduu yahay eegne kaana siib kana saar marka timcadda saas ayuu u arkayo inay dowladnimo dhalatay oo maxaa la yidhahdaa ingiriis laga hoos baxay oo la barwaaqoobi doono isaga imaginationkaas khayaalkaasuu qabay guhaad cabdigahir gabay buu tiri lila goodii abees bay isbedeli garana maysaan goodii abees ayaa isbedeli garana maysaan gocondhooyin baa aasan yihiin gabaarey karalkaama guurin halkan uu guud madow yahay buu meeshaan u socday political philosophy-ga weyn ee runtii ninkaas uu fahamsanaa uu ku jiraa waxa weeyaan ninkii ingiriiska ahaa ee hargeysa xukumayay ee tegey iyo ninkii soomaaliga ahaa ee markuu ingiriiska tegay uu hargeysa kaga tegey magaca way ku kala duwaneen waa sax midabkana waa ku kala duwaneen waa sax waxaasoo dhan waa ku kala laakiin hal wax baanay ku kala duwaneen oo markii dambe waaqicu inoo sheegay inaanay ku kala duwaneen 6 iyo maxaa la yidhaha 4 iyo 60 sannadood kadib waaqicu inoo sheegay inaanay kala duwaneen hal wax weeye waxa weeye political agendahay gudbinayaan waxay xambaarsan yihiin waxay doonayaan inay xaqiijiyaan nooca dowladnimo ay rabaan inay hirgeliyaan ayaa labadii nin isku mid noqotay ninka Soomaaliga siyaasiga markaa su'aashiis waxa weeye ninka Soomaaliga ee siyaasiga ee xukunka haya muxuu rabaa inuu xaqiijiyo wax diinteena la digo wax dowladnimo aan inuu horseedo inuu 6 iyo 4 iyo intaasoo 60 sannadood aynaan natiijo fiican laga gaarin maxaa la yiraahdaa lagu burburay la isku nacay dagaal qabiil ka dhaceen maxaa la yiraahdaa dagaalo sokeeyo oo umuladooxi ka dhaceen reer la isu dilay markii dambe dalkii gobol loo qaybsaday markii dambe building blocks iyo federalism iyo waxaad arkaysaa ay ka dhasheen halu ma jiro marka ninka siyaasiga ee Soomaaliga ah maanta mashruucaas uu rabaa inuu riixo ninka markaa mashruuca riixaya anigu magac u bixin maayo laakiin magacii hore loogu bixiyo Soomaalida waa yaqaanaan magaciisa saas daraadeed waxa muhiimka ah waxa weeye magaca ma hebel ma waxa weeyaan waxa uu hebel riixayo raba inuu hirgeliya maxay yihiin I think taasa ayaa runtii muhiim marka hebel haduu doonayo inuu hirgeliyo waxa ingiriiska iyo sheekada hirgelinayeen ay hirgelinayeen magaciisa waa taqaana markaas in magaciisa la isweydiima waxa jira runtii book runtii cajiib oo la yiraahdo Merchants of Misery macnaheedu yahay waxa weeyaan silic ku naaxayaal dadka silica ka ganacsada ama silica ku naaxay weey hadii Professor Abdi Ismail Samatar ayaa qoray marka The Merchants of Misery hadii siyaasigii Soomaaliga ha maanta lagu magacaabay ama lagu tilmaamay inuu yahay qof silica umada ku naax oo markay umadu barakacday isagu guri dhista oo marka laba qabiil isku rogmadaan isagu kursi hela oo marka laba beelood istilaan isagu wax gaara oo marka maartay dad qof dhinto isagu natiijo xaqiijinayo iyo marka la qaxay isagu natiijo xaqiijinayo waxaan maraynayaa kaas maartay The Merchants of Misery waa good example macna sheegaya siyaasiga Soomaaliga waa tusaale wanaagsan oo sheegaya maartay sida siyaasiga Soomaaliga maartay uu maanta way ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin kala duwan bay soo martay wilna lugaha ku jirta dhankee laga hayaa muxuu yahay cudurka haya dadka Soomaaliyeed maxaad silsilada dawadiisu way noqon kartaa inagoo diin isku mid ah oo midab isku mid ah oo geographically dhulkeenu isku mid yahay oo af isku mid ah ku hadlayn oo dhulkeena lagu sheegay inuu yahay far strategic dhul runtii aad maaragtay muhiimad juqraafiyadeed leh oo petrol leh oo gas petroleum maxaa la yiraahdaa kala duwan leh oo natural gases leh oo webiye leh oo maxaa la yiraahdaa webiyada wax laga beeran karo oo xoolo badan maxna inaga oo dhaqaale intaas leeg heli karo oo laba badood oo runtii far strategic ay dhulkeena ku yaalaan oo laga yaabo shipmentska ama cargo-ga adduunka u kala gooshay 30% wax ku dhow in xeebaha Soomaaliya ay isticmaalayaan oo tiradeenu marka loo eego aan dad yar ahayn in haddana la yiraahdo ceebti Afrikaati waxba inaga qaldan muxuu yahay waxaan maleynayaa waa muhiim hal waxa marka ay u baahan tahay inaan fahmo waxa weeyaan niyo hadduu qofku xanuunsado oo kadibna diagnosis kala duwan loo qoro diagnosis waa daw hadduu intuu qofku dhakhtar u tago madaxa ku xanuun kaniin madax la siiyo oo dadna markuu 10 maalmood cuno uu dhakhtar kale u tago kulmay wadnaha laga hayayo kaniin wadnaha u qoro oo waxba ku bogsan waay markuu muddo dawooyinka kala duwan qofka loo wado dawada lafteeda cudur ku noqoto waa meeshii Soomaalidu la jirtay nin bogta 100 baa ayaa u talisa Soomaalida marka diagnosis kala duwan waxyaabo kala duwan dawooyin kala duwan baa loo qoray oo aan ahayn xanuunka haya dawadii lafteeda marka Soomaalidu hadda ku xanuunsatay dawadii loo qoray
lafteeda ayaa hadda ah mushkiladda ugu weyn ee soomaalida haysata maxay tahay dawadu waxa weeye one of the things inaynu horta isla fahmno root causeska mushkiladda ugu weyne inay haysataa maxay tahay inaynu isla fahmno intaan wada fadhiiso ma faragelin shisheeya ma dhaqaala xumaa ma silic baynu isku dilaynaa oo maxaa la yidhaahdaa gaajaa isku keengeynaysa maxaa la yidhaahdaa ma competition of resources ba ma khayraadkaa inugu yaro markaa tartan khayraad baynu ku jirnaa waxbaynu kala boobaynaa ma qabyaalad baa maxanaa waxaynu isku dilaynaa ma nidaamka hadda maaragtay ma faham daraa ina haysa ma nolosha gebigeeda inaan fahamsan ma ugaadh baynuna ma dad cawaana baan naho maaragtay ma dhaqankeena violent culture ah ma dad maamaadii ahayd ninaan shantaadu kaa reebin macnaha ma dad iska fawdaayoo raba ha socoto unu hala yaaca miyaynu nahay oo anarchismka u dhashay waxay u baahan tahay in su-aalahaasayna isweydiin horta xaggeena xanuunaysa warniyo isku daalaya maxaa inoo dana nimayaho in su-aashaasi ay timaado in markaa isku daalaya maxaa inoo dana ay ka soo baxda diagnosiskeena warniyo maxaa inaga qaldan marka su-aashaas laga jawaabo markas waxaa jirta qolo research samaysay dad Soomaaliyo cilmi baadhis sameeyay Soomaali kala duwan baa waxay weydiiyeen oo deegaamo kala duwan joogo qaar baadiye jooga waxay weydiinayaan cudurka Soomaalida hayaa muxuu yahay dadkii badankoodu waxay ku jawaabeen taqaanaa waana la marginalize gareeyay xaqayga baa la qaatay haye maxaad xal u aragtaa xaqayga aan helo waa ummadan oo qof walba xaq ka maqaya sidee aaminsan qofkana la leeyahay maxaa mushkiladda ku haystaa waxay xaqayagii baa maqan maxaad xal u aragtaa waxaan xal u arkaa inaan xaqayagii helo wadeegaamo kala duwan baa ayaa cilmi baadhis noocaas su'aalo noocaas dad la weydiiyey reconciliation iyo qolad waxaas ka shaqeynaysa maxaan ka wadaa waxa weeye qof kastoo inaga mid wuxuu aaminsan walaal inuu dulman yahay qof kastoo inaga midna wuxuu aaminsan in la dulmay haye yaa wax dulmay marka qofka waxa dulmay laga cabanaya waa kuma aniga daalimo adiga ku dulmay adiga kan kala sii dulmay adiga aniga laba jeer dulmay kana shan jeer ku dulmay lama gaari karo marka ma aragtay lama gaari karo meesha la raba in la gaaro marka walaal nuxurku waxa weeye Soomaalida macnaha cudurka haya hadaan soo ururiyo hal wax baa laga yaabaa inay cudurkooda waxa ugu weyn tahay Soomaalida hal wax wali waxaan isleeyahay wali may fahmin Soomaalida waxa kala duwan waxa la yiraahdaa issue-ga iyo actors-ka af Ingiriisi mawduuca la isku hayo iyo dadka is haya weey af Soomaaliya Soomaalidu inta badan wuxuu bay fiiriyaan yaa is haya horta niyo dood iyo u dhaxaysa between home yaa dood u dhaxaysa hebel iyo hebel anigu hebel baan la socdaa wali career-kooda waa Soomaalidu inta badan isma weydiin warniyo maxaa la isku hayaa issue-ga lama soo hadal qaado mawduuca topic-ga la isku hayo lama soo hadal qaado laakiin waxa la soo hadal qaadaa new ragga is haya waayo waa hebel oo reerkayga iyo hebel oo reer hebel anigu hebel reerkayga la socdo laakiin qofka Soomaaliga inta badan isma weydiiyo niyo hebelka reerkiinu doodu aaminsan maxay tahay hebelka reerka kalena doodu aaminsan yahay maxay tahay mawduuca marka Soomaalida kuma wada hadasho waxaan isleeyahay ilaa mawduucan ka wada hadalno oo inuu isla nimaadno topic issues aan ka wada hadalno oo actors-ka aan iska ilowno halka Soomaalida aniga waa ila dheeriya adigu abwaan baa tahay gabayo badan baa tirisay waxyaabaha adiga ku gubay oo sida gaar ku saameeyay marka arrimaha Soomaaliya laga hadlayo maxaa adiga ku goonay wixii gooni ma jiraan Abdullah laakiin waxa iska jira waxa la yiraahdo intellectual responsibility waa mas'uuliyad ay tahay qofku in uu dareemo oo damiirkiisu ay dareensiiso aniga hadii la yiraahdo maxaa ku gubay wax gaar ah aniga qof aniga maqani ma jiro laakiin hal arrin oo runtii aad u muhiim aniga agtayda ah baa jira marka muhiimka waxa weeyaan Soomaalida maanta ku noolahay xaqiiqa ina hortaal dalkeeni oo burbursan dawladda shisheeye oo inagu soo duulay khayraadkeeni oo la doonay in la qaato diinteeni oo la doonay in la bedelo dadnimadeeni oo la rabo in la dooriyo xeebaheeni oo dawladda ay duulimaad ku yihiin xuduudaheey dalkeeni meel walba iska furan umadeeni oo dayacan intaas oo xaqiiqa ina hortaal xaqiiqada kale hortaal waxa weeyaan dawladaha kuwa dariska iyo kuwa ku siixiga oo doonaya xaaladda aynu ka jirnaa inay ka sii dartamo inaanay ka soo reyn waya taariikhda Soomaaliya iyo Itoobiya markaanu dib u raacno waa la ogyahay dhibaatooyinka ayaga Soomaalida ee dhexmaray waa taariikh colaad ku salaysan haddana waxaad moodaa in si kale loo dhigayo adigu taariikhda Itoobiya Soomaaliya maxaad ku macnayn kartaa Ethiopia ama Abyssinia waxa weeyaan
hab ma waa maxaa la yidhaahdaa nidaam muddo dheer jiray wey wuxuu caan ku yahay tusaale taariikhda 100 sano ugu dambeysay haddaan fiirin markii Berlin uu heshiisku ka dhacayay Afrika la rabay lagu qaybsado 1884 dowladda Ingiriisku dan bay ka lahayd dhulka Soomaalida inay timaado waxay doonaysay ciidamadeeda Sanca Yaman dhulkan cadan dhulkan degan inay hilib u hesho meeshaasna inay si nabadgelyo ku joogi karto dinaha istiraatiijiga buu Ingiriisku Soomaaliya qayb kamid ah u goostay u degay Faransiisku maadaama uu tartan kula jiray Ingiriiska isaguna Djibouti buu degay waxyaabuu Djibouti u degay waxaa kamid ah China Hindiya safarkiisaasi inuu u nabad galo oo si nabadgelyo u ruudkaasi u ahaado sidoo kale maadaama Ingiriisku uu Yaman dekadaheedii uu qabsaday cadan iyo dhulkaas inuu Faransiiskuna Djibouti qabsado uu dabadna dekada Djibouti ka dhiga dekad la loolami karta dekadaha Yaman soo dhaqaala uga sameeyo Ingiriiska ula tartan Talyaanigu koonfurta Soomaaliya u qabsado plantations in beera la sameeyo oo dabadeedna manpower la helo wax laga beero dan dhaqaalo isaguna ayuu koonfurta Soomaaliya Talyaaniguna uu soo degay dawladaha gumaysiga ee reer Yurubka waxa la socotay Ethiopia oo iyaduna shirkii Berlin ka qayb gashay oo kamid ahay dawladihii dhulka Soomaalida ee la qaybinay qaybta qaatay iyadoo hal ujeedo kaliya lahayd ujeedo gumaysi way dhul ballaaris ujeedo gumaysi oo maxay dhul ballaaris in Soomaalida la qaybsanaya iyaduna qayb ay gumaysato caloosheeda soo gashay ay ka hesho waxay raadinaysaa xeebta Banaadir waxay raadinaysaa xeebta Zaylac waxay raadinaysaa xeebta Berbera waxay raadinaysaa xeebaha Soomaaliya waxay raadinaysaa xeebaha Khartoum ee Suudaan inay qaarkood hesho casab iyo musawac iyo dhulkan markii dambe waa tiliqday waa la ogaaba xeebaha Djibouti raadinaysa waxaa jira article caan ah oo uu qoray nin Soomaali ah oo la yiraahdo Professor Nuruddin Faarax Nuruddin waxa la yiraahdaa which way to the sea please fadlan ii sheeg jidka badda gala la yiraahdaa 1987 meelahaas aan filay inuu ahaa wuxuu kaga sheekeynayaa taariikh dheer oo rabitaankii iyo damacii boqorrada Itoobiya kala dambeeyay ay ku doonayeen xeebaha Soomaalida inay ku qabsadaan xeebaha Soomaalida kaliya maaha hadday Eritrea heli karaan hadday maxaa la yiraahdaa Khartoum iyo Suudaan iyo dhulkan heli karaan xeeb doon biyo doon ay horta taariikhdaas ah saas daraadeed horta taariikhdaas meel taala waa 100 sano ugu dambeeyay macna kama hadlaayo maxaa la loolankii ku salaysnaa diinta ma ka hadlay ee u dhaxeeyay maxaa la yiraahdaa Soomaalida muslimiinta ah iyo dadka Christianka ah ee Ethiopia hogaaminaya ma ka hadlay marka walaal taariikhda iniga Ethiopia oo dhaxaysa waxa weeye Ethiopia boqortooyada Abyssinia oo doonaysa in dhulkan aynu degannahay iyo dhulkan aynu inagu Ilaahay inagu beeray iyo diinteena intaba inay ka takhalusto oo iyada dhulkan ay hoggaan ka ahaato iyo dad muslimiina oo Soomaaliya oo dhulkan degan oo doonaya damaca Ethiopia inay sortaagaan marka inaga xaaladda inaga Ethiopia inoo dhaxaysa markasta waa conflict waa dagaal waa xiisad baa inoo dhaxaysa markasta xabadu inaanay dhacahayn baa laga yaabaa laakiin marna xiriirka inoo dhacaya normalization maaha maxaa la yiraahdaa xiriir saaxiibtinimo maaha waa conflict waa xiisad waa taxadir uu qofka kale uu mid walba ka kale ka taxadirayo ayadoo sidaas ay tahay haddana siyaasiyiinta Soomaalidu waxay leeyihiin Ethiopia maaha Ethiopiyadii hore waa Ethiopia cusub oo ogol wax wada lahaansho deris wanaag isxaq dhowr iyo maartay ka shaqaynta iswadaarsiga waxyaabaha wanaagsan maxaad ka leedahay arrinka adigu Ethiopia intaan hadda anigu fahamkayga u yahay استراتيجية waxa weeye waxa la yiraahdaa istiraatiijiyada labada biyood hadda siyaasadooda maartay arrimaha dibadda saasay inta badan ku saleysan tahay waxa weeyaan biyaha macaan ee wabiga Nile iyo biyaha bad gaar ahaan badda cas hadii la heli karo Ethiopia marka waxay ku shaqeynaysaa siyaasad istiraatiijiya oo ah inay biyaha macaan ee wabiga Nile ay xidho oo biyo xidheen iyo dhaamam u samaysato biyaha dhanaan ee gaar ahaan badda casna ay gaadho oo maraakiib dagaal iyo ciidamo maxaa la yiraahdaa badeedo naval bases ay ku yeelato oo ay deganaato iyada foreign policy-geedu sidaas ku saleysan yahay siyaasadda arrimaha dibadda Ethiopia waa sidaas inaga maxay ku saleysan tahay siyaasadda ninka Soomaaliga ee siyaasiga ku ahad sheegtay ee la xiriirka anaga Ethiopia noo dhaxeeya wuu isbedelay
etoobiya siyaasaddeeda arrimaha dibadda wataas waana clear waa very clear maxay ku salaysan tahay iyaga tooda maxay xaqiijinayaan iyagu markay leeyihin xidhiidhka anaga etoobiya noo dhexeey wuu hagaag maxay rabaan inay xaqiijiyaan maxay rabaan inay achieve gareeyaan dhinacooda anigu waxba iima muuqdaan ay achieve gareyn karaan soomaaliya waa la qaybiyey ilaa 6-7 maamul baa laga sameeyey welina waxaa lagu dadaalayaa in lasii qaybiyo maamul kastoo soomaaliya laga sameeya intooda badan etoobiya daris bay leeyihin ma dhammaantood baan dhaho etoobiya xuduud dhinaca dhulka ah bay la leeyihiin ciidamada etoobiya siday rabaan u dhex mari doona maxaa la dhaha xeeb bay leeyihin maamul kastoo soomaaliya laga sameeyey wuxuu leeyahy marin dhinaca badda ah oo etoobiya badda ku xidhi kara laga soo bilaabo kismaayo ilaa iyo meesha ugu dambaysa etoobiya meeshay doontay badda access garayn kartaa ma fahamta ciidamada ethiopiana baa baysas kule inta ugu badan leh dhulka soomaaliya ee hadda aynu sheegayno intooda kalena intelligencekooda iyo diblomaasiyintooda iyo maxaa la yidhahdaa waxoodaasaa jooga iyo waraaqahooda iyo waxaas iima muuqata markaa balance of power oo nin diblomaasi ahoo soomaaliya oo siyaasi uu dhihi karo way isbedeshay aragtidii siyaasadeed anaga etoobiya noo dhexaysay sidaas daraaddeed maxaa la yidhaahdaa waanu kala faa'iidaysanayna haddaanu nahay labada dhinac aniga qofaar ma ii muuqato aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa abwaan nageeye cali khaliif waxa uu waramayey idaacadda islaamiga alfurqaan aad baad umahadsan tahay abwaan aad baad umahadsan tahay cabdullahi adiga alfurqaan waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu